Kuuriyada Waqooyi oo ka dhistay 8 qasri madaxtooyo magaalada Pyongyang si cadawgeeda ay u maran habaabiso. Shiinaha oo kuleyl ba'an ka jiro ayaa hawada u diray diyaarado drones ah si daruuraha ay roob ugu sameeyaan. Germany oo sheegtay inay Ukraine siinayso hub cusub. Wadaadka caanka ahna siyaasiga u dhashay Ciraaq, Muqtada al-Sadr oo sheegay inuu siyaasadda iskaga baxay. Dhageystayaashan iyo daawadayaashan sharafta mudan, inta aanan u gudagelin faahfaahinta wararkaas, fadlan waxaan idinka codsanaynaa subscribe, share iyo like inaad saartaan page-ka iyo channel-ka aan ku kala leenahay YouTube-ka iyo Facebook ee Gacar Media Tube. Mahadsanidin. Aan ku bilowno. Siyaasiga caanka ah reer Ciraaq Muqtada al-Sadr oo siyaasadda iskaga baxay kadib Ciraaq oo xaalad adag gashay. Hogaamiyaha Shiicada Islaamiga isla markaasina ah siyaasi Muqtada al-Sadr, inkastoo doorashadii ka dhacday dalka Ciraaq uu ku guuleystay, haddana uu awoodi waayay inuu soo dhiso dowlad wadaag. Haddaba hogaamiyaha Shiicada ahna siyaasiga ayaa sheegay inuu siyaasadda iskaga baxay. Ficilkan ayaa horseeday in Ciraaq xaalad adag gasho. Kumanaan taageerayaasha Muqtada al-Sadr ka mid ah oo ka xanaaqay go'aanka Muqtada uu kaga baxay siyaasadda ayaa xoog ku galay madaxtooyada, iyagoo la wareegay baarlamaanka dalka Ciraaq oo shirsanaa, isla markaasina rabay baarlamaanku inuu ku dhawaaqo magacaabista madaxweyne cusub iyo ra'iisul wasaare cusub. Iyadoo xaalku sidan yahay, ra'iisul wasaare al-Kadhimi oo shir gudoominayay shirka golaha wasiirada ayaa shirkii joojiyay, isla markaasina kala diray golihiisa wasiirada. Madaxtooyada dalka Ciraaq iyo agagaarkeeda oo amnigeeda si adag loo adkeeyay, isla markaasina Baaqdad ayaa bandow lagu soo rogay. Inkastoo Muqtada al-Sadr uusan xil haynin, haddana ka qaybgalka xagga siyaasadda sanado badan ayuu ku soo jiray. Isla markaasi go'aanka uu siyaasadda kaga baxay ayuu bartiisa Twitter-ka qoraalkan sidan uu ku baahiyay, isagoo yidhi, arrimaha siyaasadda in aan dhexgelin ayaan go'aansaday. Sidoo kale ka qaybgalka ururada siyaasadda dhaqdhaqaaqa Sadarista ee asaga loogu magac daray dhammaan in uu joojiyay ayuu sheegay. Doorashadii dhawaan ka dhacday Ciraaq, Muqtada al-Sadr 73 kuraasta baarlamaanka ayuu helay, asagoo si guud ugu guuleystay. Haddana dowlad wadaag oo qaybaha kala duwan ee siyaasadda dalka Ciraaq ay ku wada jiraan inuu soo dhiso wuu ku guuldareystay. Sidoo kale waxaa la soo sheegay in Muqtada al-Sadr uusan dooneynin ama uusan rabin in dowlad wadaag uu la dhisto xoogagga xisbiyada kale ee Shiicada ee ay Iiraan taageerto. Saaxiibadiisii ka tirsanaa xisbigiisa ayaa sidoo kale dalbaday in doorashada lagu celiyo. Sidoo kale xubnahan xisbigiisa ka tirsan ayaa baarlamaanka iskaga baxay. Sidaas darteed wuxuu sheegay in uu siyaasadda iskaga baxay. Ha ahaatee, go'aankiisa waxaa ka carooday taageerayaashiisa. Xanaaqan oo sii xumaaday oo bilooyin dowlad la'aan Ciraaq ka dhigay ayaa waxaa laga cabsi qabaa in Ciraaq xaalad tan ka xun ay dhex tiimbato. Shiinaha oo kuleyl ba'an oo ka jira ayaa cirka u diray diyaarado drones si daruuraha roob ay ugu dhalinayaan. Droneska ay Shiinaha hawada u direen waxaa xawrka ay ku firdhinayaan kiimikada la yiraahdo silver iodide. Cimilada dalka Shiinaha laga soo bilaabo toddobaadkii hore, halbeegga heerkulka wuxuu dhaafay 40 centigrade. Heerkulka xadkiisu dhaafay iyo abaaro ba'an oo ka jira gudaha Shiinaha ayaa Shiinaha ku kalifay in diyaarado drones ay u diraan xawrka ama daruuraha si ay ugu dhaliyaan roob. Waxaa sida tabisay warbaahinta Sky News. Haddaba qaabkee roobku ugu dhalinayaa Shiinaha? Aaladda daruuraha loo diray waxay leedahay qaabka barafka, kaasoo firdhinaya kiimikada silver iodide. Marka xawrka ama daruuraha lagu dul firdhiyo kiimikada silver iodide, waxay fursad u siinaysaa in roobku samaysmo ama abuurmo. Ficilka noocan ah ee xawrka ama daruuraha lagu kobciyo kadibna roob laga sameeyo waxaa la yiraahdaa cloud seeding. Shiinaha diiwaangelinta heerkulka iyo roobka wuxuu soo bilaabay 1960-kii, taasoo Shiinaha uu isticmaalayay nidaamkan xilliga abaarta iyo kuleylka ba'an uu ka jira dhulkiisa. Haddaba toddobaadkii hore laga soo bilaabo, heerkulka dalka Shiinaha wuxuu dhaafay 40 centigrade. Koonfurta dalka Shiinaha, gobolka ku yaala la yiraahdo Gansu, sargaalka bedelista cimilada ama weather modification officer-ka Mr. Yang Hojan ayaa sheegay in ay u qorsheysan tahay in gobolka oo dhan ay ka sameeyaan 8 duulimaad, kaasoo lagu wada gaarsiinayo adeegga daruuraha laga dhalinayo roobka. Sidoo kale wuxuu sheegay si loo kordhiyo xaddiga roobka in la hawlgelinayo diyaarado nooca jeedka ah.
Germany oo hub cusub siinaysa Ukraine. Ra'iisul wasaaraha dalka Germany Chancellor Olaf ayaa sheegay inay hub ugu deeqayaan dalka Ukraine ee colaadda kala dhexeysa dalka Ruushka. Ra'iisul wasaare Olaf ayaa sheegay inay dhawaan hub cusub u dirayaan dalka Ukraine. Chancellor-ka dalka Jarmalka ayaa ku sheegay hubka cusub ee ay siinayaan Ukraine in la yiraahdo Super Model Weapon. Sidoo kale, Ra'iisul wasaare Olaf ayaa xaqiijiyay in ay Ukraine ugu deeqayaan nidaamka difaaca hawada, radar iyo drones kala duwan. Ra'iisul wasaare Olaf Scholz ayaa yidhi Kiev wax walba ay u baahan tahay oo taageero nooc walba isugu jira. Berlin in ay siiso oo garab istaagto diyaar ayay u tahay. Bishii hore ayay ahayd markii Mr. Olaf uu booqasho ku tagay dalka Ukraine. Xilligaas uu kula kulmay halkaasi madaxweynaha Ukraine Zelensky, isla markaasina taageero u muujiyay Mr. Zelensky. Waxaa xusid mudan in dalka Germany uu gaaray heer uu dib u habeyn ku sameeyo sharciga hubka dalkiisa si uu Ukraine u gaarsiiyo taageero hub. Dhinaca kale, waxaa lama ilaawaan ah in dalka Ruushku marar kala duwan uu sheegay in uu burburiyay hub sida gantaalada noocyada kala duwan ee ay Ukraine markii hore ugu deeqeen dalalka reer galbeedka. Kuuriyada Waqooyi si ay cadowgeeda u marin habaabiso ayaa waxay dhistay 8 dhismayaal qasri madaxtooye ah. Waxaa la soo sheegay in Waqooyiga Kuuriya ay dhistay 8 qasri madaxtooye ah oo aan la kala garanayn oo isku qaab ah, isku midab oo isla eg. Sida warbaahinta Daily Mail lagu daabacay, ujeedada 8 dhismayaasha qasri madaxtooye ayaa lagu sheegay sidii loo marin habaabin lahaa cadowga Kuuriyada Waqooyi, isla markaasina sidii loo xaqiijin lahaa loona ilaalin lahaa amniga madaxweyne Kim Jong-un. Warbixinta ayaa intaa ku daraysa maadaama madaxweyne Kim ay halis amni kaga imaan karto dalka dariska la ah Waqooyiga Kuuriya, Koonfurta Kuuriya iyo dalalka reer galbeedka, ayay Waqooyiga Kuuriya u dhistay 8 qasri madaxtooye si aan loo ogaanin xogta iyo meesha hadba uu ku sugan yahay madaxweyne Kim Jong-un.